guys weliga uma maleynay Mareykanka intaan joogo inay tiish la'aan dhaceyso biyo la'aan dhaceyso hilib la'aan dhaceyso it's just like unbelievable Soomaaliya hadda kala maqli jiray suuq madoobe waxa dhahay suuq madoobe la sheegi jiraa ku dhacay I don't know what reason loogu bixiyay leeyankana hadii ma sha Allah Black Friday oo maleysa worse than Black Friday marka saykada saanay maruusa emergency diyaaradda xataa sankaan loo xiray marka welcome back guys insha Allah salaamu calaykum marka maanta waxaan in la share gareynaa videogan oo shortka ah oo haawi barbeerka noroviruska ilaahay naga haaye wixii aan soo gatay iyo sidii aniga isku diyaariyo in la share gareynaya just in case waayo dukaamada la xiray marka ay buy the cereal apple juice ko kale maasha Allah waa iska soo badsaday maxay ahayd biyaha cad ko kale maalmihii hore waa la weynay laakiin hadda inta store-ka tagta soo weysid ku noqon next day early morning is nicer maxay ahayd digirto kale malayga oo gasacadaha ku jiro kale if you use it fruit kan oo kale insha Allah maxay ahayd adi wixii aad isticmaashid oo isleedahay waa u baahan tahay yaanyada ketchup-ka ilmaha macaroni and cheese-ka tantii microwave bowl-ka taala waaba weynay popcorn-kan ilmaha in case hadda spring break-na uu soo socdaa insha Allah ketchup-koodii waxyaalihi adi ilmaha guriga u isticmaalay hadii dukaamada laga xiro waa basically videoga also wuxuu ku noqon karaa bishii ma arkino grocery-ga aad soo suubsi jirta camal waaye maxay ahayd oatmeal-kaadii pancake-gaadii bread-keygii iyo Soomaalidana waa aadahay don't forget your pasta bread you also emergency waa kuwaas xataa waa loo baahan yahay ma ogtahay saliideena insha Allah marka wixii adiga caadiga ahaayo kale iska soo gadgad iska soo aruurso bildan ayuu ku joogaysaa wax badan kaama qaadanayso marka insha Allah waa barbeer ayaa naga takulligeen insha Allah ilaahay naga haayo wixii cudur ah marka walaalayaal maalinta aan dukaanka tagay akun belief tish ma lahayn keemis qosha ma lahayn kee kacmaha ma lahayn basically waa la yaaba marka hore serious ma baahan marka arka dukaamada Mareykanka saan ever for 21 years Mareykanka jooga I never seen it dukaan saan suuq madooba ka dhacay bal Soomaalida suuq madoob wixii loogu bixiyay hadda ka hor hal ii soo sheegay marka insha Allah marka malaaygi ma lahan hilibkii ma lahan any meat waxba ma yaalaan marka insha Allah hand sanitizer hand soap waxa soo dhan ever waa ana marka isticmaali jiray hand soap iyo dish soap kaba alxamdulillah xabada ka taalo oo mentonkan camal since ay soo oolin wipe hand sanitizer-ki antibiotic wipes kan hadaa heshido kale iska soo qaado dialkan yariiskan halka xaba taalo backup way kulligood marka kan gaariga ilmaha iskaga saar 9.9 bakteeriyadu ka dila insha Allah hadii aad maadaaba aad option ay hayso tii kale ay soo oolin kuwana guriga iska dhigo hadhowtiyo kale hadii saabuun la'aan ay kugu dhacdo maadaaba caagi weyn ko rafiilka uu si jirno kale guriga iska soo dhig geedkeena islaamaha ama gabdhaha kale waa u baahan this emergency 5 xabo 10 xabo soo qaatay in case marka aad ayaan ii salaamayaa marka before markii hore saabuunta meeshan tagna waa tan ahaan soobkii laba xabadaas taala yariiska intii kale rafiilka ama ahaan sanitizer-ki eber tan waxa waaye emergency kit-keena caadi ina iska diyaarsatid guriga haduu ku yaalo alxamdulillah moor ku soo darso qandhada ilmaha kale hadii hargab ku dhaca ama wax ay ku dhacaan adiga abi barafinka channel-keeni kanoo kale dhuuqa hargabka markuu ilmaha ku dhaco soo taroodka iyo qofco kale u baahan yahay asmada cunuga asma haduu qabo kale ama hooyo ay ku joogto ama aabo uu ku joogo kaniinigooda wuxuu dhan insha Allah u soo diyaarsada kanoo kale guriga iskaga ka yaala ka holigaan yarka wixii to extra toothbrush if you need it marka insha Allah this is only barber thank you guys so much if you enjoyed the video let me know thank you for watching don't forget to subscribe and hit the notification button bell ka noo taabo thumbs up salaam alaykum